صالح يا لندن. لندن يا لاب صالح. هاي هاي contribution to our cause. Today I bring a message of goodwill and best wishes from the Republic of Somaliland. حقين شغل عاوة لاب صالح يا لندن. لاب صالح يا لندن. أبوان فنان يا سلام. فنانين ونبى شو. لبيا فنان بعاون. واكا. فرحان بينوبوي ليش؟ صوضب صوضب. أحمد زكي هذه أصحاب الأروع سلامية. ما شاء الله. ومدى الصومالية نك تجونا وسلامية. ناس اللجنة. عرهان ومدري نور الله له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دوادي سلامي مالي وناكسن هذي وناكسن قف كاستحلقي أوتها وناكسن وعن halkaa waxaan idinla wadaagayaa xafladii soo dhaweyntii dabaaldegii xornimadii iyo itiraafkii Somaliland oo duuduuban oo socda yaa keenay yaa kale laab saalax iga dheh laab saalax baa wada kuwa macallin xildhibaanadii si sharaf leh gobonimo leh meeqaam sare loogu soo dhaweeyay London. waxaan ku leenahay soo dhawow asxaabteeda. waxaan rabaa inaan la wadaago xafladii wax yaroo googoosa baaqigu wuu idin dhiman yahay iyadii oo dhammaystiran tafatiran fanaaniinta reer London oo dhan say u dhan yihiin. asxaabteeda daawasho wacan iyo gabaygii gaalka loo tiriyey. Establishment of Somaliland state. The first logical step was starting the forgiveness and reconciliation process between the clans living in Somaliland. And this made it possible to find common ground in public building conference. If I try to underline the reality, Somaliland has made significant progress through genuine peace consultation process based on resolving internal problems peacefully. mar kale iyo meeqaam kale iyo meel kale halkan waxaa ka muuqata canab yaa kaloo duubooya Axmed Seki iyo fanaaniinta reer London oo dhan. odayga deynta dhulka laga qaadaa cirka lagu tuuray goor soo noqon mooyaane. halkan waxaa fadhiya Cabdinuur Laale fanaanad kale iyo fanaaniinta oo dhan xafladda oo dhammaystiran daawasho wacan. قفل بقوس كيس أقول لك أنت على سنة دلالة البوليس برنامج كاملين صعبة وقت كده وادمي هاي مركا نحن على أول بحكونا على أفضل قدي عم براسيزا وما ستي دور صحف وعن الصباح هذا اللي بيقوله هو حسن عنه فانك وعن الموسيقى waxaan ugu tegay magaalada Hargeysa wuxuu sameeyay kooxda ay ku faano xidigaha maqalka Soomaaliya ama dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo haysta xidigaha Hargeysa waa ninkii isaga halkan waa London waxaan u mahadnaqayaa mar labaad bahada suugaanta ama fanka waxaan doonayaa inaan mahadnaqo oon isku salaamo ambaasada saaxiibkii baasha cawil oo munaasabadii ugu dambeysay ee magaalada markaa baabuurtooda tambeelkaa kalata waxaana beertaa meelaha baakmiska loogu talagalay traffic lightiska sinaba uguma gudubtaan hayimani markaa taaran tihiin xawaaraha waxaad ku xadidaan inta loo xadeeyey idinkoo kamaradaha koonayaasha ku xidhan ka taxabiraya markaa nolosha waaweyn tagtaan ama dukaanada ama meelaha cuntada firi lagu iibiyo safka si wanaagsan baad u gashaa idinkoo sidii loo soo kala wareeyey in loo kala horreeyo doorbidaya markaa guryaha agatii joogtaanse waxaa kee qaylada hoostooda taagan idinkoo dariskiina tixgelinaya markaa ballamaha xafiisyada ku leeyihiin kama habsaantaan waaba dhegdegtaan intaasoo ficil oo ummad kharibka dhayn karto idinkoo faham badan oo aan idinkaga beeno walaalayaal
waxaan ka haynaa meheradaha kala duwan ee dalkii ka furteen waan ka haynaa gargaar iyo gacansiin iyo taakuleen wixii dadka guudasa ugu dabqaatan sida abaaraha sida loo xiirto loo labisto ama loo socdo ciddii dhoofto baa cid kale kaga dheetaantaana waan ka haynaa balse waxaan idinka dooranaa inaad noo soo waaridaan aqoon waxaan idinka dooranaa inaad noo soo waaridaan xirfad waxaan idinka dooranaa inaad noo soo waaridaan ilbaxnimo hufan kiina aqoonta leh ee dhakhtarka ah ama kiina injineerka ah ama kiina IT-ga bartay waxaan dooranaa in aqoonta uu bartay uu dalkii ku soo celiyo waayo maanta ma jirto maalin aan uga baahi badannahay aqoon idin odhan maayo idin odhan maayo xeerfulii iyo xeertoontiray ujeedi ku bihoos jiray idan ka mid ah ayaa tidi walaalkumanku dooni oo qisaya oo igu dhacaan bayna kaga sheegay madaxaan noqdo waxaan kuri marka lahay ma hatay telefoonkaga qoro inatiga socotana inta gacanta jiifka si dawladda joogo bilow laba daqiiqa ugu soo qoro halkii aan taagan